بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وأيان جامع نوحيان دلد hore waxaynu barnaamij uga soo hadalnay talaabooyin aad ku noqon karto qof isku kalsoon caawana waxaynu ka hadli doonaa caadooyin maalinle ah oo laga yaabo markasta inaad samayso isla markaana hoos u dhigaya kalsoonidaada caadada koobaad raaligelinta badan dad badan ayaa aaminsan in raaligelinta iyo dalbashada cafiska joogtada ahi ay wanaajiso xidhiidhada isla markaana ay meesha ka saarto khalad fahanka laakiin taasi markasta sax ma aha marka aad muddo badan joogtayso raaligelinta dadka walibana aad dusha u ridato khalad kasta waxa dhacaysa in maskaxdaadu aaminto inaad markasta ka khaldan tahay dadka kale waliba ay xaq kugu leeyihiin inaad cafis weydiisato taasoo ka dhigaysa qof shakhsiyad daciif leh mar walbana dareensan inuu dadka kale abaal u hayo maadaama ay cafiyeen waa wax dabiici ah inaad qirato khaladkaaga isla markaana aad raaligelin ka bixiso gafafkaaga laakiin haddii ay noqoto caado aad caadaysato marka aad khaldan tahay iyo marka aad saxan tahayba waxay dilaysaa kalsoonidaada caadada labaad inaanad ahmiyad badan siinin dharka dad badan ayaa xidha wixii ay ka helaan shandadooda amaba maalmo badan sita hal nooc sababtu waxa weeye inay ku dareemayaan nafis ama inay aaminsan yihiin inay ka turjumayso kalsooni oo aad waxaad doonto xidhan karto laakiin arrinka aanay ogeyn ayaa ah in dharku ay yihiin meesha ugu horeysa ee dadku inaga qiimeeyaan aragtida koobaad sawirka ugu horeeya ee aad qofka ka qaadan karto 75% waxa weeye habka uu labisan yahay iyo waxa uu xidhan yahay intaas waxa dheer inaanay labisku ka turjumaynin muuqaalka sare oo qura ee ay dareen ka bixinayaan gudaha waxa aad ka dareemayso si aanay saameyn xun ugu yeelan kalsoonidaada ku dadaal inaad qorsheyso markasta waxa aad xidhanayso iyo xilliga aad xidhanayso caadada saddexaad ammaanta badan marka aad ammaanto dadka in ka badan inta ay u qalmaan waxaad maskaxdaada siinaysaa fariin ah inaad ka hooseyso heerka ay iyagu joogaan waqtiga badankiisana waxaad dareemaysaa hooseyn iyo inaad tahay qof laga fiican yahay taasina waxay dhaawac weyn ku keenaysaa heerka kalsoonidaada sidaas darteed ku dadaal inaad dadka siiso ammaanta ay mudan yihiin oo qura caadada afraad isticmaalka kelmadda haa markasta dadka aqbala wax kasta oo loola yimaado waxay leeyihiin doonis quusa oo ah inay dadka kala jeclaadaan daraasad lagu faafiyey wargeys caan ah ayaa la isugu keenay meel 30 dumar ah iyadoo loo qaybiyey 3 qaybood waxaana laga dalbaday inay hagaajiyaan waraaqo badan oo meel yaalay qaybtii koowaad markasta waxa laga soo dhexgeliyay shaqadii waxaana laga dalbanayay inay qabtaan hawlo kale oo isku wadaan labada shaqo qaybta labaadna waxa loo sheegay inay diidaan inay qabtaan shaqo aan ahayn taas waraaqaha halka kuwii saddexaadna loo sheegay inay waxyaabaha qaarna aqbalaan qaar kalena diidaan markii la qiimeeyay waxqabadka saddexda qaybood waxa qiimeyn ahaan la siiyay qaybtii koowaad ee wax kasta aqbashay 10kiiba eber halka qaybtii diiday inay shaqo kala qabtaanna la siiyay 10kiiba 8 qaybtii hawlaha qaarna yeeshay qaarna diiday iyagana qiimeyntoodu waxay noqotay 10kiiba 3 nuxurka daraasadaasi waxa weeye in yeelitaanka wax kasta ay hoos u dhigayso heerka waxqabadkaaga sidoo kalena heerka kalsoonidaada maadaama aad noqonayso qof ay ku adag tahay inuu maya ku dhaho qof kasta inaad jeceshahay in lagu aqbalo ama lagu jeclaado waa dabeecad bini'aadam oo dabiici ah laakiin marka aad isu bedesho wax markasta la raadiyo waxay yaraysaa kalsoonidaada caadada shanaad isku mashquulinta waxyaabaha yaryar waxa jira dad ay u muuqdaan waxyaabo yaryar oo aan micno badan lahayn sida waxa tahay qof gaaban qof dhuuban ama malihid timo jilicsan iyo wixii la mid ah
laakiin aanay u muuqan waxyaabaha waaweyn ee ay ku xoogan yihiin sida aqoontooda, inta buug ay akhristaan, hadal-yaqaanimadooda iyo daacadnimadooda. habfakarka noocan ahi wuxuu dilaa kalsoonidaada. ku dadaal inaanad ku mashquulin waxyaabaha yaryar. caadada 6, dadka kale inay go'aanka kugu gaadhaan. nolosha waxaynu qaadanaa go'aano badan, qaar saxa oo aynu ku faraxno samayntooda iyo kuwa qaldan oo aynu wax ka baranno. go'aanadaas ayaa dhisa kalsoonideenna ku aadan qaadashada go'aanada xaaladaha ayna soo wajaha. laakiin haddii dadka kale markasta aad go'aankaaga u dhiibato iyaguna kuu gaadhaan, waxaad duminaysaa kalsoonidaada. wax waayo aragnimo ahina kuu kordhi maayaan. caadada 7, la saaxiibidda saaxiibada xun. waxaa jirta murti tidhaahda ii sheeg qofka aad la socoto, waxaan kuu sheegayaa qofka aad tahay. waa hadal si qoto dheer u tilmaamaya saamaynta nooca saaxiibada. marka aad la saaxiibto dad dhinaca xun wax ka eega, ku yasa, isla markaana aan isku kalsoonayn, waxay hoos u dhigayaan kalsoonidaada. sidaas darteed markasta ku dadaal inaad xulato saaxiibo tayo fiican. caadada 8, la barbardhigidda naftaada dadka kale. waxaa jira dad aaminsan inay noloshu tahay tartan lagaga fiicnaanayo dadka kale, laakiin taasi ma aha tallaabo caafimaad qabta. laacibkii kubadda basketballka ee caanka ahaa Michael Jordan ayaa la weydiiyey hadda ka hor su'aal ah, hadda kadib yaad rabtaa inaad ka fiicnaato? yaad rabtaa inaad iskoorkiisa jabiso? Jordan wuxuu yidhi, qofka qudha ee aan rabo inaan ka fiicnaado waa qofkii aan shalay ahaa. cajiibsanaa hadalkaasi. marka aad isbarbar dhigto dadka kale, markasta waxaad dareemaysaa nusqaan iyo kalsooni darro. laakiin sirtu waxay ku jirtaa inaad naftaada barbar dhigto sidii ay ahayd sanad ka hor, bil ka hor, ama xitaa maalin ka hor. markasta waa inaad eegtaa koritaanka ku yimi wacyigaaga iyo inay wax iska kaa bedeleen. caadada 9, waxaad xasuusan tahay dhacdooyinkii hore. dhammaanteen waxayna soo maray xaalado aynu ka qoomamayno iyo dhibaatooyin laga soo gudbay. iyadoo ay taasi jirto, haddana in qofku markasta ka murugoodo wax tegay waxay dhaawac gaadhsiisaa noloshiisa hadda la joogo iyo kalsoonidiisa ku aadan la tacaalidda arrimaha ku yimaada. mar walba xasuusnow inay noloshu tahay meel ka samaysan caqabado isdaba yaalla. ugu dambayntii, wax ka baro wixii ku soo maray, hana ku mashquulin maskaxdaada ee diiradda saar wakhtigaad hadda ku jirto iyo qorshahaaga mustaqbalka. wassalaamu calaykum.